aanu ku bilownay maanta waxaa degan magaalada Qabri Dahare ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya kadib markii ay amniga la wareegeen ciidamada federaalka waxay ka dambeysay xiisad ka dhalatay gabar 18 jir ahayd oo qoyskoodu ay sheegeen in ay ku dhimatay saldhigga booliska ee magaalada Qadaryan kadib markii la xiray rabshadihii ka dhashay warka ku saabsan geerida gabadhaasina waxaa la sheegayaa in dad badan loo xirxiray علي عبد الله فيحيى علي شعاع oo gabadha dhimatay awgeed ah kana mid ah odayaasha magaalada Qabri Dahare ayaa sida wax u dhacay waxa uu ga waramay wariyaha BBC-da Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq oo London jooga waa Taysiir Umar Food Maxamed Al-Misal oo gabadhu waa 18 jir suuqay u baxday adeeg bay soo qabanaysay waa la soo qabtay booliska la geeyay 20 daqiiqo ka bacdi waxa la kaalay meedkeeda qaata iyaga soo qaado xaafadii keenay haddana way ka daba yimaadeen waan qaadaynaa baa la yiri idinku feermeeya in gabadhu way istishay feermeeya shacbigii baa markay gadooday magaalada oo dhan oo gaadiid badan lagu burburiyay anagu qoysaan dad shacbi ah meesha naga soo haween baa joogay waa la diiday in la feermeeyo gabadha hadda suuqa ka kaxaysan dowladka tagtayinka dilay baa leeydi haddana inay qaataan badaan oo ka qaadaan xaafada ka qaadaan meydkeedii markay qaadaan dabcan waa loo diiday waxa ku yaalay gabadha wabadeeda 4 farood oo abdiye waaweyn leh oo cunaha lagu qabtay iyo suulkii oo sidiisii ah siligii lagu dabay oo xarigiisii raadkiisii iyo farahaas oo la isugu daray baa ku yaalay marka dhakhtar miyaa arkay oo cadeeyay gabadhan in ceega lagu dhigay ceegadaas ay u dhimatay dhakhtarkii baa yimid markii meesha buu ka dhacay qoladii federaalka ayada askarta ay dhakhtarkooda yimid gabadhuna cunaha u dhimatay oo la dabay buu sheegay markii inta la sheegayna dadkii markaas buuqa bilaabay hadda gabadhii meedkeedii iyo meeda iyadii hadda gabadha xalay 10 saacada federaalku aasay dowladda federaalka ciidamo ka socda yimid shacbigii odayaashii baa loo yeeday waxa gabadha meydkeeda ka soo qaada xaafada habeennimaan aaseena si aan maanta oo kale aan meydkeedii la qaada booqo dhacin oo dagaalka shar oo kale u dhacin odayaal adigu la kaxaysto noocaas iyo kuwa federaalka ah aasay gabadhii waa tahay shalay buuq baa dhacay baa tiri muxuu ahaa buuqa dhacay magaaladii baa kacday mana aanan filayninba dadku waa dad mar horeba iska bislaaday buu ahaa dadka inta tirada la eg yaa mar kaliya ku wargeliyay gabadha inay dhimatay oo dhinaceena sida aad sheegaysaan la ceejiyay oo la dilay gabadha markii ayadoo suuqa ka adeegayso xaragoonaysa la qaaday waa la wada arkayay markii booliska ay tagteen la geeyay waa la arkayay marka dambe la soo saarayna magaalo saaweyn maaha waa la arkayay dadkuna dad awalba dibsanaa oo habeen walba lala baxayo ida baadi oo kale aad mooysa habeenba mid la baxayo buu ahaa dadka dhagaha uda taagnaa gabadha markii meydkeeda la keenayba magaalada oo dhan bugbaysay warka wuu soo dhagaaday iminka marka maxaad ku wada xaasheen idinka iyo ciidamadii iyo madaxdii federaalka ahaa ee timid arrintii gabadha maxaad iska tiraahdaa wax xaaleeda ma jiro xalku dadka xadna ku qofbaaxdan dadka jabina qayb yar way soo daayeen dad ilaa 58 odayaal oo jislan baa jira Qabri Dahare waa wadnihii gobolka inay soo dhacdo dowladda federaalka si degdeg ah inay u soo gasho oo waxan kala qabato oo booliska iyo waxan dadka la qabatay aanu ka codsanayna علي عبد الله فيحيى علي شعاع ayaa loo yaqaan wuxuu kamid yahay odayaasha magaalada Qabri Dahare khadka telefoonka ayuu wuxuu ugu waramayay wariyaha Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq hadaba Facebook ay dhageysay aad u tiro badan raygooda kaga soo dhiibteen warbixintaasi Cabdulcasiis Cabdullaahi Daahir oo jooga magaalada Beledxa waxa uu leeyahay waa in dadka Qabri Dahare ay nabadda dhowraan waana in si cad qoyska gabadha loogu sheegaa halka ay ku dambeysay sababta gabadhooda ay u dhimatay iyo waliba in la cadeeyo waxa sababay Salmaan Mahad Faarax oo Burtinla ka soo qoray wuxuu leeyahay runtii aad baan uga xumahay gabadha ku dhimatay saldhigga booliska ee Qabri Dahare dowladda Itoobiya ee maamulka kilinka waxa waajibka uu yiri inay jawaab cad ka bixiyaan oo ay ka keenaan hadii kale waxa dhalan kara buu rabshado baahsan iyo cawaaqib xumo baahsan